Assalaamu calaykum. Dunidan aan ku noolnahay waxyaabo badan oo muhiim ah ayaa si lama filaan ah u dhacay, laakiin waxa ugu yaabka badan waa in waxyaabaha ugu waaweyn ee la helay mararka qaar ku yimaadeen si kadis ah, waana sida ay Soomaalidu yiraahdaan haddii aad feejignaato fursadu ayada ayaaba ku imaanayso. Arrinkaanina waxaa loo yaqaanaa saranjabiya, waana in wax la helo ayadoo aanan la qorsheenin sheygaasi la helina isla markaasi uu noqdo shay muhiim ah. Muuqaalkani waxaan kuugu soo bandhigi doonaa tusaalooyin yaab leh oo ku saabsan saranjabiya, taasoo run ah taariikhdana wax badan ka bedeshay. Haddaba haddii aad ka mid tahay familka sahanka dunida, isku day in aad muuqaalkani faalo ka bixiso. Sheyga koowaad ee kadiska lagu helay qarniyo ka hor, nin caalim ahaa oo la oran jiray Archimedes ayaa ku noolaa jasiiradda Sicily ee dalka Talyaaniga. Ninkani wuxuu ahaa nin aad u caqli badan, sidoo kalena ah saynisyahan dadka aad u qadariyaan. Maalin maalmaha ka mid ah, boqorkii Sicily ayaa u yeeray, wuxuuna u dhiibay taaj dahab ah oo uu u sheegay in loogu soo sameeyay dahab nadiif ah. Laakiin boqorku wuxuu ka shakiyay ninkii sameeyay taajka, waxa uuna isdhahay wuxuu kaaga soo sameeyay bir iyo nuxaas. Waxa uuna ku yiri Archimedes, waxaan rabaa in aad ogaatid in taajkan yahay dahab saafi ah iyo in kale, laakiin ha dhaawicin taajka, hana jibinin. Arrintu waa ay ku adkaatay Archimedes, waa uuna wareeray sababtoo ah miisaanka taajka iyo kan dahabka waa ay isla ekaadeen. Marka si loo ogaado haddii taajkan yahay been, waa in la dhalaaliyo taajka. Taasina boqorku ma uusan ogoleen. Marka maalin isaga oo musqusha ku jira ayuu biyo dhex fariistay, wuxuuna arkay in biyaha kor ay u kacayaan ayna badanayaan. Kadib waxa uu gartay in shay kasta oo biyaha kor u qaadaya cufkiisa uu sareeyo. Kadib isaga oo qaaban oona qeelinayo ayuu musqusha ka soo baxay, waa uuna soo orday. Markaasi ayuu tijaabo sameeyay, taajkii waxa uu ku dhex riday biyo. Kadib haddana dahabkii ayuu isagana biyo ku dhex riday. Wuxuu ogaaday in taajka aanu ka samaysnayn dahab saafi ah oo bir lagu dhex qariyay. Wuxuuna keenay xeerka cuf isjiidka density principle, waxaana lagu sameeyay xeerkaasi diyaaradaha, maraakiibta, qalabka lagu quuso iyo tiknoolajiyo kale oo badan. Sheyga labaad kadiska lagu helay nin la oran jiray Friedrich Kekule oo ah kimistriyahan u dhashay Jarmalka oona ka shaqayn jiray London ayaa maalin isaga oo saaran gaari faras ku dhex hurday. Waxa uuna ku riyooday sheeyo yaryar oo isku aruurayo, kadibna muuqaal yaab leh sameynayo. Markii uu gurigiisa tagayna riyo kale ayuu ku arkay mas qaniinaya dibkiisa dambe. Isla markii uu hurdada ka soo kacayna waxa uu gartay in waxyaabaha kiimikada ah la isku qaabeyn karo ayna sameyn karaan waxyaabo. Wuxuuna meeshaas ka soo saaray qaacidada molecular formula, waxaana lagu sameeyay shidaal. Markii uu dhacay dagaalkii labaad adduunkana, Ingiriiska wuxuu isticmaalay fikradiisa, wuxuuna ka soo saaray diyaarad ka xoog badan diyaaradihii ay isticmaalayeen Jarmalka. Sheyga saddexaad waa qarax bedelay dunida. Alfred Nobel wuxuu ahaa nin u dhashay Sweden, wuxuuna ka soo jeeday qoys warshado leh oo soo saari jiray walxaha qarxo. Aabihiisa waxa uu lahaa warshad noocaas ah, wuxuuna ka dhaxlay aabihiisa Alfred. Markii dambena wuxuu bilaabay Alfred walxa qarxo in uu tijaabiyo sida nitroglycerin oo ah walax aad u qarax badan. Maalin maalmaha ka mid ah, si qaldan ayuu wuxuu isugu dardaray maadooyin, wuxuuna ku daray maadada nitroglycerin. Qaladkaasina wuxuu dhaliyay hal abuurnimo weyn, adduunkan wax ka bedeshay. Walxahaasi waxaa lagu dhisay buundooyin waaweyn, wadooyin iyo tareeno dhulka hoostiisa maro. Laakiin dhinaca kale, walxahani waxay sababeen malaayiin qof dhimashadooda, sidoo kalena waxaa loo adeegsaday dagaalo iyo qalalaase. Walxahani maalin uu qarxayna waxaa ku dhintay ninkii sameeyay walaalkiisa. Warbaahintan waxa ay sheegeen Alfred Nobel laftirkiisa in uu dhintay, iyagoo jaraa'idka ku soo qoreen ninkii dhimashada ka ganacsan jiray oo dhintay. Warkaasi wuxuu si weyn u taabtay Alfred, wuxuuna go'aansaday in uu wax iska bedelo. Markii uu dhimanayayna wuxuu ku dardaarmay in hantidiisa lagu asaaso abaalmarintaasoo lagu dhiirigelinayo dadka cilmiga, nabadda iyo hal abuurka leh. Lacagta laga sii sameeyana hantidaasi in dadku wax loogu qabto. Sidaas ayaana lagu dhisay abaalmarinta Nobel Peace Prize. Ugu dambeyn, saranjabiyada waa sida uu Rabbi kuu siiyo fursad, waa inaad feejignaataa xitaa haddii aad musqul gashay ama bas saaran tahay ama aad riyoonayso. Waxaa laga yaabaa inaad tahay qofka xiga ee taariikhda bedela, laakiin maxaa diidayo inaad aragto fursadda marka ay kuu timaado. Muuqaalkeena maanta halkaasi ayuu ku egyahay. Family sahanka dunida waxay idinkaga tagayaan sidaas iyo nabadgelyo.